إذا سوف ما دين نيو نواساي نيو هورس وحواي إنا مجرم يبقى على أس برسل أوتمان ولا في عين واقر من شيخ نواسا ولا واقر qofka islaam uu yahay muslim yahay hadaa gaal ku tilmaanto gaalnimadaas qofka ka soo baxay ku noqonaya leeyahay marka hadaniyo shay qoom arintaas arin culus waay anigana waxa waaye codanka intaas aad soo wacdan wax kale anigana codanka duubay maanta hadaan darag u dhinto ama al-shabaab ay dilaan beesheeda iyo talkigeeda ku raadsanayaan inta ma soo dirto beeshida codkii dhan waa geeyay abtiyaashii u geeyay adeegaashii u geeyay oo qaar u sheeg murtadan kugu xukumay ana ku xukumay saari qaatay tuuga codkeygii baad xaday saxaafadii baad ku xadgudubtay sida nimankaas aad u shaqaysaa murtad munaafiqa tahay oo baashi maxayraadiga iyo ninka la yiraahdo guuraba munaafiqan dhexdhexaadnimadii wixii idaacada sheegayna waa ka baxdeen ilaahayna ma taqaanaan muslimkiina waa ka baxdeen عدوك وشقيدان مسلم كانوا والله دريدان وهذا كان الذين أمانتي تلفونك يا صوع المرضى شيخ أحمد علي جيس تلفونك يا صوع المرضى شيخ أحمد علي جيس إلهي متقاني البناء هذا طاي هذا صوع تلفونك أحمد علي هاي أنا أركع عندنا ضوء هذا أبغى يجيب الشغلات هذه أحمد علي إبليسيو أحمد علي جيس وحوا يرسميه هو نكلا صار ذاك شيء يصير يعني aniga nin kuulu dhow kula shaqayn jira ahay golaha oo markii waa munaafiq ma in almunaafiqiina fi darki al-asfal min waxa uu qayaantay way waanadan ku waaninay aad uu qayaantay muumin god laba qaanino mar dambe khiyaanimaysid munaafiq baa tahay ee muslimka oo madawid murtad baa tahay iblis baa tahay saarif baa tahay saxaafadii baa ku adgudubtay ee allah hadu alla yahay amaanki saxaafadii baa soo golaha malaagi murtadi golaha darbiga laga saaray wasaasa maqalnay murtad tahay murtad يا أحمد قواريت وشغل سلفتك عليه هذا هو نتاجي عامل سوما صوت عارف عامل سوما ولا لها مبتدا صحيح نبوك الجين ده آخرنا النار اللي يلاقي وشوية نار إبليس يو أضيع عيال منافقنا ودي عدو منافقين المجاهدين تنا وحنكم مع صنط إلهي بكم مع صنط أنا كبح هذا البرنامج الصادق طيب هذه أبو أنقورة بقى منافقين أتين أبغى نقول يرادو نوعلمتين نقول يران عتارية أفريقية لما كده حتى الرجال شقية بركلنا ما كل شقية لمتين واحد فعلا لين عيسى بالدين ميسى بالدين ما أنت هو هيستوى مننا هم هيست إلى يبغى يسافر نين عاير أنا هاي أتياش يساعدين الموتى عاير يا أتياش وواحد دونر هذا وريا مرتضى عاير يا سعد مرتضى عاير يا سعد مرتضى باطل منافق باطل مبدأ أجيب الدرطي ولا تشتروا بآيات الله ثمنا غير ما كنت في ذات صدق بقول دولار اللي بيسيو دين تاني كون كلاطي ما يشرك هذا ما يشرك كذا كوم الشيء النبي وحاول يشرك مرتضى أنا طاي بين له طاي منافق طاي سارق باطل توق شاس المشيغة سعد يوم عاير وانا مشيغة يسوق هذه عاير كيس عبد الجليل هديكم كل اللي بدنا وخوش شيء قضية محمد دين واحد غير صودا حسبنا الله ونعم الوكيل الله تاجي قام صومي حكم بالداري هذه حد كوسا سعدان بيقولوا يا يقانان ماشي دقنتي يقانان ماشي واحد صودا سحف الى مرتداري اي وركي سمر تليفون كيغاتنا مرتم ما سوي غير سحف الى دقنتي way ogaayeen ina meesha naaga ku dhabi jirtay ogaayeen haddana meesha ku imanayaan أحمد علي جيس oo shalay ciidamada nabad sugidda qaranka ku xireen magaalada Cadaado kadib markii uu soo galay tuhna ah inuu ka tirsan yahay al-shabaab ayaa maanta sheegay in ururkaasi uu isaga baxay sanadkii 2012 Axmed Cali Gees oo warfidiyeenka kula hadlay xarun ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliya ku leeyihiin magaalada Cadaado ayaa sheegay inuu yahay ruux ganacsada hadda ka horna oo ka mid ahaan jiray al-shabaab hase yeeshee haatan uusan ka mid ahayn ururkaasi aniga oo ah Axmed Cali Gees jooga dawlad goboleedka galmudug Cadaado jooga maanta oo taariikhdu tahay February 21 ayaan waxaan rabaa inaan ummadda u cadeeyo oo u sheego ummadda Soomaaliyeed inta ay maqlaysay inta maaragtay ila joogtaba inaan ururka shabaab la yiraahdo inaan ka baxay 2012 inaan ka baxay oo sidaas awgeed ilaa waqtigaas ilaa haddana aanan kamid ahayn
marka intaas ayaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ogeysiyo u sheego arrinta qabiilka ama 4.5 dad badan baa qaba oo aaminsan dawladda ku jira marka in nidaamkii loo maray hadda ma laga yaabaa oo Xasan Daahir Aweys la leeyahay beel weyn buu ka dhashay Sakariye beel weyn buu ka dhashay Aatam beel buu ka dhashay laakiin dadka qaar ah beelahooda yiriin oo xukunka cadaaladdu ay qabataa sida ma muuqatay goolta arrinta sheegtay oo arrin macquul ah runtii ninka xitaa beesha ka dhashada Xasan Xanifta soo qaato kala waa nin baad cadda oo hawiye ah Xasan Daahir Aweys waa nin habar gidira Sakariye waa bariixaan laakiin waxa u malaysaa in arrinta beelaha ama qabyaaladda ama qabiilku uu aad saameyn ugu leeyahay cadaaladda ama dawladnimada ninka la Axmed Ali Gees oo ku hanjabi jiray waxa sotaa waxaa iska jooga cid shomala waa ragii ku faanayay oo telefoonada codka laga hayo codkooda aan hadda hayna dhageysaneyn ciidda soo kama dhihin nin weyn waa tahay horta waxa waaye inaan mujrim iyo baqti alla u sibirtida u timaanto laga fiican yahay واقر من شيخ نواس ولاده واقر qofka hadduu islaam uu yahay muslim yahay haddaa gaal ku tilmaanto gaalnimadaas qofka kasoo baxay ku noqonaya layidhi marka hadda niyo sheeqow arrintaas arrin culus waay anigana waxaa waaye codankaa intaasaad iisoo wacda mise wax kale anigana codankaa duubay maanta haddaan dharag u dhinto ama al-shabaab ay idilaan beesheeda iyo talkeyga ku raadsanayaan inta maad iisoo dirta beesheeda codkii dhan waa geeyey abtiyaashia u geeyey adeegaashia u geeyey oo qaar u sheeg murtadaan kugu xukumay anaana ku xukumay saari qaataay tuuga codkaygii baad xadday saxaafadii baad ku xadgudubtay sida nimankaasaad u shaqaysaa murtad munaafiqaa tahay oo baashi adiga iyo ninka la yiraahdo guuraba munaafiqaan dhexdhexaadnimadii wixii idaacaddaad sheegayna waad ka baxdeen ilaahayna ma taqaanaan muslimkiina waad ka baxdeen cadowgaad u shaqaydaan muslimkana waa la diriraydaane wixii aad heshaan aad leedihiin أمانتي تلفونك أنا صوّع المرضم شيء أحمد علي جيس تلفونك أنا صوّع المرضم شيء أحمد علي جيس إلهي متقاني البناء هذا طاي هذا صوّع تلفونك أحمد علي هاي أنا أركع عندنا ضوء هذا وأبغى يجيب الشغلات هذه أحمد علي إبليسيو أحمد علي جيس وحوا يرسميه هو نكلا صار لك شيء يصير يعني aniga nin kuulu dhow kula shaqayn jira ahay golaha ma idadawid waa munaafiq ma in almunaafiqiina fi darki al-asfal min waxaad ugu qayaantay waanadan kuwaaninay aad ugu qayaantay muumin dad lama ogaanino mar dambe khiyaani maysid munaafiq baa tahay ee muslimka oo madawid murtad baa tahay ibliis baa tahay saarif baa tahay saxaafadii baad ku adgudubtay ee allaha hadduu alla yahay amaanki saxaafadii bana soo golaha malaagi murtadi golaha darbiga laga saaray wasaasoo maqalnay murtad tahay murtad يا أحمد قواريت وشغل سلفتك عليه هذا هو نتاجي عامل سوما صوت عارف عامل سوما ولا لها مبتدا صحيح نبوك الجين ده آخرنا النار الولاية وشوية نار إبليسيو أضيع عيال منافق نودي هذو منافقين المجاهدين تنا وحنكون مع صنط إلهي بكون مع صنط أنا كبر على البرنامج الصادق طيب هذه أبو أنقورة بقى منافقين أتين أبغى نقول يرادو نوعلمتين نقول يران عتارية أفريقية لما كده حتى الرجال شقية بركلنا ما كل شقية لمتين واحد فعلا لين عيسى بالدين ميسى بالدين ما أنت هو هيستوى مننا هم هيست إلى يبغى يسافر نين عاير أنا هاي أتياش يساعدين الموتى عاير يا أتياش وواحد دونا هذا وريا مرتضى عاير يا سعد مرتضى عاير يا سعد مرتضى باطل منافق باطل مبدأ أجيب الدرطي ولا تشتروا بآيات الله ثمنا غير ما كنت في ذات صدق بقول دولار اللي بيسيو دين تاني كون كلاطي ما يشرك هذا ما يشرك كذا كوم الشيء النبي وحاول يشرك مرتضى أنا طاي بين له طاي منافق طاي سارق باطل توق شاس المشيغة سعد يبدي عاير وانا مشيغة يسوق هذه عاير كيس عبد الجليل هديكم كل اللي بدنا وخوش شيء قضي واحد دينا واحد غير صودا حسبنا الله ونعم الوكيل الله تاجي قام صومي حكم بالبادي هذه هذا كوسا صعب بيقولوا يا يقارنان ماشي دقنتي يقارنان ماشي واحد صودا سحف إلى مرتدى أي ورك سمر التلفون كي جاتنا مرتب ما مسوي غير سحف إلى دقنتي وأوجايين إنا ماشي ناقة كل بيجرتي أوجايين حتى أنا ماشي كل مرة
axmed cali gees oo shalay ciidamada nabad sugidda qaranka ku xireen magaalada cadaado kadib markii uu soo galay tuhna ah inuu ka tirsan yahay al-shabaab ayaa maanta sheegay in ururkaasi isaga baxay sanadkii 2012 axmed cali gees oo warfidiyeenka kula hadlay xarun ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliya ku leeyihiin magaalada cadaado ayaa sheegay inuu yahay ruux ganacsada hadda ka horna oo ka mid ahaan jiray al-shabaab hase yeeshee haatan uusan ka mid ahayn ururkaasi aniga oo ah axmed cali gees jooga dowlad goboleedka galmudug cadaado jooga maanta oo taariikhdu tahay February 21 ayaan waxaan rabaa inaan ummadda u cadeeyo oon u sheego ummadda Soomaaliyeed inta ay maqlayso iyo inta maaragtay yani ila joogtaba inaan ururka shabaab la yiraahdo inaan ka baxay 2012 inaan ka baxay oo sidaas awgeed ilaa waqtigaas ilaa haddana aanan ka mid ahayn marka intaas ayaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ogeysiyo u sheego dhinaca kale axmed cali gees oo loo xiray tuhun ah inuu ka tirsan yahay al-shabaab ayaa sheegay in xilli aan fogeyn dhaqdhaqaaqaasi ay qaybo ka mid ah gobolka galgaduud ku xireen iyagoo ka xun ka bixitaankooda sida uu sheegay waa cadaadis badan kala koomay ayagoo ka xun kasoo tigidaan marka hore kasoo tagayay ayaa kala kulmay oo mar waxa kamid ah telefoonada laga qaaday ayaa kamid ahayd marka cadaadis badan ayaan kala kulmay marka sidaas waa marka haatan waxaad joogtaa cadaado ma waxaad leedahay al-shabaab rasmi ahaan iyo si dadban midna uga mid yihiin si dadban iyo si toosan midna uga mid yihiin sidaas ayaan ummadda u cadaynayaa ummadda ay dhageysanaysa taas ayaan u cadaynayaa waa anigu horta waxaan ahaa nin macduur oo meel fadhiya aan u badnaa afka ayaan ka taageeri jiray markii afka aan ka taageeri jiray anigu waxaan u taageerayay dad diinta u shaqeynaya oo gaalada la jihaadaya ayaan maaragtay yani u arkayay kadibna waxaan arkay inay qaladaad badan uu ka jiro oo gaaladii dagaalkeedii iyo dadkii muslimkii la isku daray oo aan waxba la kala soocaynin oo akhdaa badan ay jirto